بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، وسؤال قف كستoo مسلم isweydiin karo oo dhulkan jooga, sidee bay u suurtagelaysaa inuu meeshana joogo diintiisana u ilaashado? qof kasta oo dhul uu qariib ku yahay taga, stranger ah, waxa hubaala in mashaakil tiro badani oo nololeed ka hor imanayaan. mashaakilku wuu sii adag yahay marka aad timaado ummad dhisan oo hadday tahay mabaadi'deeda oo dhan haysata. innagu waxaynu u nimi halkan inaynu su-aalo runtii isweydiinaba habboon ku saabsan, waxaynu u nimi inaynu wax ku bedelano, mise waxaynu u nimi inaynu wax kororhsanno? inaynu wax ku bedelanaa dee waa fududahay. qofku hadduu rabo afkiisa, dhaqankiisa, diintiisa waxaba inuu dhiibo, bedelkana wixii uu helayo uu qaato, waa war la garto. mid kalena waxa weeyaan waxaagiina inaad haysato waxna ku darsatid, adigoo waxaagii haysta inaad wax kororhsatid. bulshooyinka iyo qofka, fardiga iyo mujtamaca, haddii qofku waxa uu aaminsan yahay iyo culture-ku wato iyo dhaqanka iyo afka iyo ka bulshadu iswaafaqsan yahay, wuxuu dareemaa rayn iyo naxariis iyo deganaanshiyo. mashaakilku way ka yaraadaan. walidalik buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa: man asbaxa minkum aamina fi sirbi mucaafan fi jasadi cindahu quutu yowmi fakaأnamaa xiizat lahu اdunya bixadaafiiriha. qofkii ka soo dhex toosa ama kuwaa bariista fii sirbi, ay fii mujtamaci, fii ahli, fii qowmi, dadkiisa qofkii kuwaa bariista isagoo nabad qaba, caafimaad qaba, waxuu cuno haystaa, kaa adduunka o dhan baa ku soo ururay. yacni qofkani wuxuu helay alamni nafsi walamni alcaqadi walamni sixi walamni alghadaa'i. yacni wuxuu u baahnaa ee noloshu ay u baahnayd buu hayaa. waxaana iswaafaqsan bulshadu u yimi ama bulshadu ka tirsan yahay, waxay aaminsan tahay iyo wuxuu aaminsan yahay baa iswaafaqsan. haddii qofku uu yimaado meel aanu dhaqanka, afka, culture-ka, diinta la wadaagin, waxaa adkaata siduu isu adjust gareeyo. waxaa adkaata wixiisiina siduu u haysto waxna u kororhsado. waxaa fududaata inuu milmo, dawabaan uu ku dhaco, ou dadka ka mid noqda fudud. marka ay dhacdo markaa in bulshadu waxay rumaysan tahay iyo waxa dhaqan u ah iyo nidaamkeedu iyo adigu wixii aad rumaysnayd ama diin u haysatay ama dhaqanku u ahaa iska hor yimaadaan, waa markuu qofku dareemo algurba, waa markuu strangenimada dareemo, inuu stranger yahay, waa markuu dareemo challenge inuu ka soo horjeedo. waayo bulsho kastoo meel ku dhaqan waxa la yaqaanaa, waxay ilaalisaa identity-ga ay bulshadu leedahay, waxaana ku ilaalisaa can طariiqi اlcilmi waاliclaami wاlqanuun. wasaaradda waxbarashadu waxay ilaalisaa bulshadan inay isku darto oo ay siiso identity-gii bulshadu lahaa qofkan kusoo biiray inay siiso. iclaamkuna waa sidoo kale. mediyu
waxa uu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo iyo waa dhaqan iyo culture iyo hidde iyo af ay dadkani leeyihiin iyo taariikhdoodii intaa waxa dheer haddii ay intaasi ku anfici weydo systemkaad ku qasbantay nidaamka guud alqaanuun system baa ku qasbaya inaad systemka raacdo su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay meesha kaa gadisan sidee baad diin ugu dhexaysan kartaa marka aad meel kula nooca joogtid majhuudka ama effortka iyo kostkay kugu qaadanaysa inaad waxaaga haysataa waa wax fudud waayo bulshadaad la nooshoo dhan baa dhan u wada socotaa saa daraaddeed afkaa lumi maayo dhaqankaa lumi maayo diinkaa lumi maayo waxoogaa un adigu is-ilaaliso midhmidhka qaldan wixiisa inaad ka tagto ayuunbaad u baahan tahay laakiin systemka guud wixii aad rumaysnayd buu wadaa marka inaad diintaada ilaashato ilmahaaga ilaashatid dhaqankaaga ilaashatid awoodda aad ku bixinaysa iyo hantida aad ku bixinaysaa waa wax yar markaadse timaadid meel aad intiiba kaga gedisan tahay waxay u baahan tahay wakti ka badan iyo hanti ka badan iyo effort ka badan iyo caqli ka badan aad ku adeegsato si aad waxaagii hore u ilaashato u suurtoobi karto inaad waxna kororsato sideedabana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka dhulka ku nool intooda badan haddaad aqbasho yudiluuka can sabiili illah baa ilaahay tilmaamaya jidkay kaa luminayaan haddaba qofka halkan yimi waxaa la yidhaahdaa laba option ama laba doorasho qura laba khiyaaro keliyuu haystaa khiyaar waa inuu u diyaar garoobo sidii uu diintiisana u xejisan lahaa iyo wixiisa waxna u kororsan lahaa hadduu arkayo taasi inaanay suurtagal ahayn khiyaar labaad ma jiro ee waa inuu meeluu wixiisa ku haysan kara tagaa halkayba inaad tirahda halkaa dhib baa ka jirte dunida gebigeeduba waa challenge intaad nooshahay waa alibtilaa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دنيا واحد وشوكتان لقوا يتحاموا لكن هذا كوكو حرنتي مركا امتحان كان نوع تشالنج غرينيسو تشالنج كات ربطين قادته كان نوات قادن كرتا تشالنج كات شوغا هذا تكبيحي كرتو هدي أنا كان أودي كرين وأنا قادة challenge هذا والبكسو عرفتي ونبض إيو dhaqaaliya cunno ku saabsiisana kaas sidii aad u manage garayn lahayd waa inaad waajahda laakiin meel ka dhaxaysa ma jirto labada wixii ka dhaxeeya waa dhimasho maxaa loo baahan yahay markaa inaynu haysano teeni ilaahay quraanka wuxuu inoogaga warramayaa qisas tiro badan oo ku saabsan bulshooyin dunidan soo maray iyo siday u noolaayeen bulshooyinka ilaahay ka warramaya quraanka ku soo qisaskooda ku soo naqliyay qaar gaala iyo qaar muslimaba way lahaayeen ummadaha ugu tirada badan leh quraanku uu ka warramo waxa kamid ah dadka yahuuda la yiraahdo yahuudi waa bulsho taariikh dheer leh waa dad xun iyo dad wanaagsan balaha dad wanaagsan oo badan bay lahaayeen sa quraanku ka warramayo bal anbiya badan bay lahaayeen nabiyo nabi yaqub nabi yusuf nabi sulaiman nabi hud nabi muuse anbiyada quraanku warramayo dhamida waa family-ga waa bulshadaasi ka tirsanaya dad wanaagsan way lahaayeen أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة إلهي وحلي إياك وحنو كيا اللي أئمة آيات كياك أئمة الصبري وآيات كياك يقصد ضدك قدوة النقضي تصالح لنك كلنا قوة حن بيلهاي إلهي مركا القرآن كوحينا قوة الرمية bulshada reer banu Israa'iil ay raaqay marka mid taariikhdooda
إلهي وحده وقطعناهم في الأرض أمما ونقوقين ودول كانوا كسيدين نبا إلهي قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون دد ونكسن ويلهاين با إلهي دد حن ويلهاين وانا لقوقوي واتحامي با إلهي ليو حسنات يا سيئات با وناقي حموي صمبا والغوي اتحامي لعلهم يرجعون maxaa xaalkoodii noqday markaa waxaa qisaska alla inoogaga warramaya inaynan qaar ka midi ficladay sameeyeen inaynan samaynin ilaahay wuxuu leeyahay markaa fakhalafa min bacdihim khalfun warithu lkitaab kuwaa waxaa gadaal maray koox kitaabka dhaxashay baa ilaahay yidhi warithu alkitaaba kitaabka way dhaxleen ya'khuduuna carada hada aladna waxay qaadanayaan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala noloshan gaaban wixii ka soo gaadho waa iska qaadanayaan xalal iyo xaaraan iyagoo aan u eegin oo wayaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaa wain yaatihim caradun mithluh mar labaad haddii kii oo kale ku soo baxana ya'khuduuh baa ilaahay yidhi waa qaadanayaan ilaahay qoladan wuxuu ku tilmaamaya dhowr sifo kow kitaabka way dhaxleen bini aadamku wuxuu dhididkiisa iyo xooggiisa ku baxsado iyo wuxuu dhaxla ku helaa agtiisa way ku kala fudud yihiin bini aadamku haddii uu maalan ilmaha yar haddii xoolo looga dhinto inta badan waxaa dhacda inay maxay ku cayaaraan waayo umay dhididin iyagu laakiin qofku xoolaha uu shaqaystay ku dhidida ee xoog iyo naftiisa ku bixiyo wuu la jeclaabayo way adagtahay inay ka baxdo noloshoo dhan baa sidaasiya diinta dadka u dhintay ee naf iyo maalba soo siistay ee waxay u hijrooday saxaabadii nebiga iyo dadkani waa noloshooda dhan bay siisteen saawgeed way ku adkaayeen laakiin dadka dhaxalka u helay sideenoo kale meelun baynu iskaga dhalanay dad muslimiini joogaan islaamkun baynu aabbayaasha iyo awowyadeen allahu naxariistee ka dhaxallay wax kasta oo inagu joogay ma jirin adnaa majhuud maynan gelinin qoladan waxaa lagu tilmaamay iyaguna inay kitaabka dhaxleen dhaxal bay ku heleen warithu lkitaab laakiin dhaqankoodii maxaa ilaahay ku tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi waxay doonaan inta iska sameeyaanba waxay leeyihin ilaahay waa ghafuuru raxiim sayufaru lana waa noo dambi dhaafi doonaa bini aadamku waa dhacdaa inuu gafo ilaahayna waa ghafuuru raxiim hadduu ka soo noqdo toobad keeno jidka saxa qaada ilaahay dembigiisa ugu dhaafaa laakiin qoladani caadadoodu waa maxay waa iska dhumbanayaan marka la yidhaha war waa sideena insha allah ilaahay baa noo dambi dhaafa bay leeyihiin ilaahay baa noo dambi dhaafi ma berrita hadday tiitimaadana waa la wadayaa that means dembiga waa la wadayaa rajada iyo amalka ah ilaahay baa dembiga dhaafi doonana waa la hayaabaa ilaahay leeyihi qoladan ilaahay wuxuu ku yidhi alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun war kuwan miyaan ilaahay ballan ka qaadin baa alla leeyahy subxaana wa tacaala inaana ilaahay been ka sheegin oo kitaabkan inay daraaseeyaan iyo waxa ku jira war daarta aakhira u faa'iido badan baa ilaahay leeyahy u khayr badan dadkii ilaahay ka cabsanaya war miyaanay caqli lahayn baa ilaahay yidhi afalaa tacqiluun miyaan garashadu shaqaynayn baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan gruub kuwaasaa lagu tilmaamay inay noqdeen qaar kalena waxaa la tilmaamaya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا كتابك قبصة با إلهي لي مسك وبتضعيف يبا الاستعمال وهذا عربيد يعني هو واحد قبقبان يسواد حجين يسو مسك هو قبطي لكن مسك والذين يمسكون بالكتاب إلهي كوا كتابك قبصانية حجينية وأقاموا الصلاة صلاة أوغية إنا لا نضيع أجر المصلحين بإلهي مالو من النبا إلهي لي كوا السماحة السبين أجر كوا ظلم مايو إذن قصة إلهي وحين أبو الشاقر هربر إسرائيل لقوقويي سيدا إنو كلا فردني لو كلا فرديي إن إداد صالحة يداد حنبا لهايين وهلا شاقر امتحان هذا وصومري بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
laakiin waxaa la tilmaamay gruubkaasi gruub inuu ka dambeeyey iyagu intay wax walba iska dhumbadaan diintoodii aan xejisanin ee amalka ah in loo dambi dhaafi doono un iska haystaa waxay doonaanna sameeyaan iyo koox kaloo ah kuwo kitaabkoodii intay qabsadeen xejistay oo salaadoodii oogay oo ilaahay leeyahay kuwa wanaagsanna ajarkooda lumin mayno idan waa labada wado qofka qariibka ah mid unba ku biiraya bulsho kaa badan markaad adigoo yar la joogto labadaa wado mid unbaad qaadaysaa su-aashu waxa weeyaan haddaba waa maxay wasaa'ilka inugu xejin kara diinteenna sidaynu u xejin karnaa waxaynu u baahannahay inaynu in yar dib ugu noqonno tajribadii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi moxamed wadcigaynu ku loon lahay mid ka adag bay ku noolaayeen mid ka adag nebi maxamed isagoo keligiiya la soo diray calayhi salaatu wasalaam qof iyo laba iyo saddex baa rumeeyey dhul gaaleedna way deganaayeen meeshay deganaayeen markii waa dhul gaaleed madiinina waa dhul gaaleed marka gaalaa degan culture kalaa yaalla luqadooda isku mid bay ahayd laakiin caqiide iyo dhaqan ka gadisan kii jaahiliga bay haysteen sidee bay u dhacday inay saxaabada iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka hor tagaan oo ay diintoodii u xejistaan waxaan rabaa inaan in yar tilmaamno 4 suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegay qur-aanka culamadu waxay isku waafaqsayeen 4 suuradood baa ugu soo hordegay ayay inta badan tilmaamaan waliba 4 suuradood wada dhan maaha mid walba qaybteeda hore waa suurat alcalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة داس قيب طاهرين وحكالو ينسو دكتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسي هرير وحكالو سو دكتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى الآيات ككسيحية وحكالو سودقي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا آياتك هاي علماء يراهدان waxyigii koowaad ee nebi maxamed ku soo degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa godka markuu ku jiray laakiin maadaama uu nolol adag waajihi doono waxay idhahdaan qaabka wax la ysugu bara tacliimka si qabow baa qofka wax loo baraa laakiin nebi maxamed markii lagu bilaabayey qaab adag baa loogu bilaabay malakul jibriil baa intuu qabtoo gelgelay ayuu iqra ku yidhi waxay culammadu yidhahdaan waxaa la taabsiinayey قمة الانتباه والصحوة waxaa soo socdaa wax fudud inaanu ahayn inuu xoog u soo jeesto dabeetana qur-aankan baa ku soo degay qur-aankani muxuu ka warramayaa waxay yidhahdaan aayaadkani waxay sheegayaan haddii lagu dhaqmo waa waxa sababi kara inay cidi mabaadi'deeda haysato ku dheganaato diinta inaad xejisato aayaadkani dhowr shay bay ka warramayaan midi waxa weeyaan kow waxay ka warramayaan qadiyat alcilm iyadoo laga yaabo carab inay jahli ku sugnayd aqoon inaan waxba ka jirin oo ay noloshoodu cayn ka ahayd cilmiguna inaanu qiimo badan agtooda ku lahayn laakiin wixii qur-aanka ugu soo hordegay masalada qalamka masalada kitaabada iyo akhriska iyo cilmiga iyo ku saabsan buu ahaa 2 suuradood markaa nuun walqalami wamaa yasturuun waxaa lagaga warramayaa qalinka iyo waxa la qoro اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قضية العلم والقلم والسطور بالغ ورما هاي علماء يدادن كو الجاهل وحبيس كما دفاعي كره دي الرباط دين تاني إنه حيجي سنو
وين نبرنا قضية العلم بني آدم كو واحد كوادة ويسكو دافعه ومسألة العلم وحاند علمي ولا هين ما الدفاعي كرتيد وحاند قرنين ما الدفاعي كرتيد وحاند قرنين شبهات كاكو بدنيا ولو شك قلينيا وحاند قرنين أسئلة دتك كما جوابي كرتيد وحاند قرنين ما قرن كرتيد محاضو هيسطاه إذا أولى شيء أما شيء ugu horeeya inuu baahanay hadii aynu rabno inaynu diintan haysanaa waa inaynu garanaa waa inaynu baranaa waa inaynu aqoon u yeelanaa aqiidadeeda iyo waxay sheegayso waa inaynu garanaa reasoningkeeda iyo common sense-keeda iyo waxa ka dambeeya waa inaynu garanaa waa inay caqligeenu wuxuu qaadan kara noqotaa waa inuu si fiican u fahmno kaas waa mid كلابada آياتكani ka waramayaan waxa weeyaan waxay yiraahdaan khayru difaac khayru wasiila lidifaac huwa alhujuum bay yiraahdaan wasiilada ugu fiican ee difaac loo gala waa inaad hujuum ama diyaar u tahay inaad wax iska dhicin kartid haddii adigu lagu yeedho mabaadida kale lagu wado waad lumaysaa laakiin ilaahay muxuu nabi maxamed ku yidhi yaa ayuhal mudathiru qum faandir كان اسداد يوبا ليدي كع ودق وحكاه الرئيس سود كتاب انه يقرا يريو يمكن النبي عليه الصلاه والسلام لحدا بلاد كسعونيه هدنا waxa lagu bilaabay inuu kaco digo idan inay dacwo sameeyna inaynu dadka kala diinta ugu yeedhnaa waa waxa keensanaya teena inaynu xijin karno waxa lagu yiri markaa qum faandir wa rabbaka fakabbir rabbigana weyne وثيابك فطهر مريها هي قلوبتا دي كوري هوسبا استاهريال والرجس فهجر حمها كجور كهجرود ولا تمنن تستكثر إخلاص لك عليه واحد بحين سها من شيغان وحلو يري مركا ولربك فاصبر وضدا إن قادانا مشاكل هي تشالنج عصب ويان يدنا الصبر بالليل كما حلنا قضية كواد وقضية العلم هذين رمينا دين تن قصقنا نوحش إنه وين إنه برنا قرنا سفي على فهمنا وهي اليويل يربع كذا اللي بعدنا وامحي وين إنه يضو شقينا دتك قارسينا إنه ناس قارسينا وهنا إنه سقط طهرنا كوريو هاسبا حماها كهجرونو كجورو وحاسنا وين إنه هذا إلهي درتي يا خلاص challenge ka inagu hor iman doonana waa inaynu u sabirnaa kaasaa la fara bini aadamku hadduu shay culus qaado wuu daalaa hadduu challenge-ku ku adkaado wuu isdhiibaa laakiin qofka muslimkaa lama rabo inuu isdhiibo muxuu samaynayaa waa xidhiidhkaad ilaahay la leedahay adkee baa lagu yidhi haddaad rabto inaad ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisana hesho hadday dhibo ku qabsato maxaad ka fekertaa qofka bini aadamka markay dhibo qabsato maalan economical problem baa ku qabsaday dhaqaale dhib dhaqaale markiiba waxaad fekeraysaa wartalow xaggaad ula kacda waxaa kugu soo xaadiraya ciddii qaraaba iyo toliya asxaaba ahaydeen ee waxhaysataad isleeday waxbay kaa tari karaysaabaa markaaba madaxaaga ku soo xaadiraya marka waxaad markiiba tijaabinaysaa bal intaasi culayska inay kaa qaado inaad connection la sameeyo xidhiidh inaad ku wala samayso ilaahay wuxuu leeyahay haddii diintan culays aad dareentaan aniga xidhiidha la sameeyo saa daraaddeed baa nebi maxamed waxaa lagu yidhi iyo saxaabadii yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila habeenkii kac baa la yidhi nuskii ama intiisa badan ama in yar nuska ka yare habeenkii kac ilaahay xidhiidhkaad la leeday xooji waayo innaa sanulqii calayka qawlan thaqiila baa ilaah yidhi war culus baan kuu dhiibayaa baa ilaah yidhi diinkan inaad xambaartaa waa culays baa ilaahay leeyahy haddaba culayskaasi si u fududaado ilaahay kaalmayso ilaahay cibaadadiisa iyo ku-xidhnaantiisa iyo baryadiisa kaa kaalmaysa baa ilaahay leeyahy ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu watan wa aqwamu qiila
maalin oo dhanna waina laka fi nahaari sabxan طawiila tasbiixso oo dikrigaaga badi watabatal ilayhi tabtiila waka suuraddoo dhamme markaa waxay tilmaamaysaa qaybtan aynu tilmaamaynaa haddaad aqoon diintiina u yeelataan oo ku qanacdaan isla markaana aad dacwa samaysaan oo dadka ugu yeedhaan idinkuna ay isdaahirisaan sabir baa laydinka baahan yahay haddii challenge-ku xoogoobo mar kasta ilaahay ku xidhnow baa la yidhi biyadihi malakuutu kulli shay isaga gacantiisa wax waliba ku jiraan allaha wax waliba gacantiisa ku jiraan ku xidhan baa la yidhi waxaan leenahay marka afarta suuradooda hore intaasay ka warramayaan saxaabadii si fiican afartan u fahmay ilaahay muxuu ku sifeeyey min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مؤمنين توحى كميدا با إلهي الرق كرن شاقي وحي إلهي بلان لقالين قارنا وكل دينتين يقول دين تودي هايستي دينتين قارنا وسوغيان وح بدله كما يسمين دين تودي با إلهي لي ما يبدلين إلهي وحكوت المامية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والرقبة إلى إليه أنا كمشغول تجارة هي بيع هي نقال الرادنتو إلهي حسكي سنقالو مرنا فيها إلى إليه هي صلاة أوغستيد هي الزكاة بحنتيدا وايو waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo indhuhuba ay gadgadoomaan waxaan dhahdaa inta badan su-aalaha haddii goor la isweydiiye waxaa ka mid a meelahan marka la joogo shaqadii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo salaadii baa isku beegmi weyday sheekh maxaa la yaha waxaa qiil loo raadinaya maxay shaqaduna dee iyadu isweydiin male inay xagga salaada laga helo fasax loo helo dhanka salaada ka soo baxa ama ilaahayna wuxuu ina leeyahay raggaa diintooda haystay astaantoodu waxay ahayd rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaa duul aanay ka weecinin ama aanay dhaafinin tijaarada iyo xoolo raadisku ilaahay xuskiisa iyo salaada ogisteeda iyo zakada aanay dhaafinin idan waxaan leenahay kow afarta shay ama saddexda shay ee aynu nidhi duuduub ahaan afartaas suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegaa tilmaamayey waa waxa koowaad aynu diinta ku xijin karno waa tajribadii ay ka soo baxeen saxaabadii iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaan iyaba dhul gaaleed bay joogeene waxay diintoodii u xejisteen ee ay u faafiyeen maanta dhowrka 2 bilyan ay u haysataa qur-aankaasaa ilaahay ku sugay waxaa sheegaya waxaa soo warwareejinaya waxa weeyaan waxaabad qarinaysaa inaad muslim tahay waxaad qarinaysaa cibaadadaadaad rabtaa si sakrata inaad u samayso inaad cibaadaysata aan cidina ku ogaanin laakiin asalku waa maxay asalku waxa weeyaan الاعتزاز بدين diintaada inaad ku faanto maxaa keensanaya inaad kalsooni ku qabto inay tahay wixii ugu saxsanaa ee dunidan yaalay taasaa keensanaysa walidaalika baa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بإلهي إلهي با عزة يا شرف ودن اسكال يا رسول كيس يا انت الرميسي لكن منافقين تو أرمها ما أوجب إلهي لي منافقين تو ما أوجب إلهي لي بلانيقنا الصحابة دي سيدي وأركيين لما قصة كوبا بانت المام يا علماء التاريخ صور نقليان midi waa dagaalkii qaadasiya markuu dhahay qaadasiya waa dagaalkii ugu weynaaye dhex mara iiraan ama beershiya dowladdii la odhan jiray iyo dowladdii islaamiga ahay meeshan hadda ciraaq la yidhaahdo buu dagaalku ka dhacay iiraantuna dee ciraaq iyaga iska haystay madayn caasimadooda waa baqdaad bay wax yar u jirtaa meeshaasi dagaalkii markuu muddo socday dagaaladaasi muslimiinta waxaa hogaaminaya oo wada عشرة المبشرين من كمدة سعد بن أبي وقاص يا سودانية كانوا عيدا كمسلمين تاوتا
laba boqoloo kun ciidan ku dhodhow oo eraantaana waxaa wata nin rustam la yidhaahdo. marka rustam wuxuu soo jeediyey fikrada war bal aan wada hadallo, cid soo dir aan idinla hadle. 3 nin baa kolba mid loo diray. maalin baa loo diraa, waa iswaraystaan, bal mid kale soo dir, waa la iswaraystaa, mid kale soo dir. 3 saxaaba kolba mid loo diray. saxaabadii la dirayey waxaan filaya cabdillahi bnu xudayfa iyo mugiirata bnu shucb iyo ribciy bnu caamir inay 3da hayeen baan rajaynaya. calaa kulli xaal qisada ribci baan uun sheegayaa. ribciy bnu caamir waa nin dagaal ku soo jiray, faras yaroo gaaban wata, dee nin dhowr bilood dagaal ku soo jiro iska rafaadsan oo aanay abhadan adduunku ka muuqanin weeyaan. ninkanna inuu hanjabiyo ku talagalo intuu carshigiisii meel dhigtay sariirtii boqortooyada ayaa kaarbadka cas la waday. arrin dhan baa la goglay markaa. ninkanoo faraskiisii gaabnaa wataa soo galay, kaarbadku iska soo dul eriyey. dabeetana barkimooyin meeshan yaalla ayuu ku xidhay faraskiisii. xaggii ninka boqorku usoo dhaqaaqay. waxaa la yidhi may loolama galo boqorka hubka. rustam huboo la geli maysa, hubkaaga dhigo marka adoo bilaahuba. wuxuu ku yidhi dhegayso, idinkaa ii yeedhay, sidaydan haddaydan iigu ogolaanaynin waa iska noqonaya. saa u sheegaa ninka madaxdaydina. waa loo tago waxaa la yidhi ninkii wuxuu yidhi ama waxaygoo dhan baan ku soo gelayaa ama waan iska tegaya. soo daaya buu yidhi isagoo wixiisa wata. wixiisi isagoo watuu soo galay. su-aal baa la weydiiyey, maa jaa bikum, maxaa idin keenay? ninkani wuxuu ka fikerayaa dee nimankani dhul saxaara iyo gaajo iyo rafaad iyo haraad bay ka yimaadeen, marka mala haddii wax la siiyo dowladdu iska laaluushto waa noqon karaan. marka wuxuu leeyahy maa jaa bikum, maxaa idin keenay? ribciy ibnu caamir wuxuu ugu jawaabay jawaaba allahu ibtacahana, ilaahay baana soo saaray buu yidhi marka koowaad, linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illahi waxda, inaanu ciddii alla doono dad ka saara dadka addoommahaysa addoonsanayaan oo ilaahay addoommo uga dhigno. ilaahay baana soo diray buu leeyay, waxaana naloo soo diray inuu bini aadamka xorayno oo dadku inaanay dad addoommo u noqonin, rabbi un addoommo loo noqdo. kaasaan u soconnaa buu leeyay. waxaanu kaloo u soconnaa buu leeyay inaanu dadka ka saarno min diiqi dunya ilaa sicatiha, adduunka cidhiidhigiisa inaanu ka saarno ballaceeda u saarno. ninkan kaarbadka cas loo dhigay buu cidhiidhi ka saaraya. ninkan faraska yare gaaban watee hayliyaamaa xidhan ayaana la sicada adduunkan ku tusaya. yani waxa weeyaan qofku waa qanaacada iyo qalbiga. qofka muslimka adduunkan gacantiisa ku jiraa wax weyn lama aha. marka wuxuu leeyahay adduunkana idin dhammaray, cidhiidhigeedaan kaa saaraya, waxaan kuu saarayaa buu leeyahy maxay? sicadeed iyo ballaceeda. waxaan kaloo kaa bixinaynaa buu leeyahy min jawri اladyaani ilaa cadli اlislaam, dulmiga diimahan kaa bixinaynaa oo cadaaladda islaamkaanu kuu keenaynaa. idan waxay tilmaamaysaa ninkani siduu muctaz bidiinihi u yahay. ama boqor ha la kulmaya ama cidduu doonaa la kulmo, wuxuu aaminsan yahay buu ku faanaya, korkiisa ka muuqda. si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya xataa haddii laydinka xoog bato. ghaswat uxud markii muslimiinta la jabiyaa ilaahay wuxuu leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin. ha liidanina baa ilaahay yidhi, hana murugoonina, idinkaa koreeya haddaa mu'min tihiin. cinda allaahi agtiisa idinkaa koreeya haddaa maxay tihiin? haddaa mu'miniin tihiin. qiso labaad baan rabaa inaan tilmaamo oo sheegaysa saxaabadan isay diintooda ugu kalsoonaayeen. bayt ilmaqdis iyo shaam meeshan ciidamadii muslimiinta furtay iyana nin 10 ka mid ah hogaaminayay. cubaydata bnu ljaraax ayaa hogaaminayay. nimankii kristanka ahaa ee meesha ay isku qabteen markii dagaaladu dhaceen kadib waxay idhaahdeen bayt ilmaqdis waa idinku wareejinaynaa, heshiis baanu gelaynaa, laakiin furaha amiirkiina cid aan ahayn u dhiibi mayno. cumar baanu heshiiska ka saxeexanaynaa u dhiibaynaa. warkii buu soo diro, cumar buu soo sheegay. cumar baa madiine ka soo baxay isagoo raba bayt ilmaqdis furaheeda inuu la wareego. markuu meesha agtoodii marayo ayay muslimiintiina ka hor yimaadeen iyagoo soo dhoweynaya. saraakiishii iyo ciidamadii muslimiinta raggii hogaaminayay ayaa ka hor yimid. meeshan uu cumar soo maray wuxuu ku soo maray meel dhiidhi iyo dhoobo midhana buu soo maray. dabeetana intuu neefkii ka daadegay oo labada kabood la baxay
ayuu hogaamiyey labadiisa kaboodna halku ku soo qaatay waxay saxaabadii ka hor yimaadeen markaa cumar oo neefkiina hogaaminaya cagahaya intanna dee dhoobo ku leh kabihiina halka ku sita abaa cubayda markaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك ما تشعلي سنة dadka inuu la kulmayna adigoo saatana inay ku arkaan ma jecli buu leeyahay yani waxaan ka jeclaan lahaa adigoo de amiirulmu'miniin u muuqdo oo aan dhooba iyo waxba toona lahayn inaad meesha timaado cumar wuu ka xanaaqay awwa low yaqul hada gayruk abaa cubayda mid aan adiga haynin muu yidhaahda buu leeyahay yani cumar wuxuu leeyahay adigoo abaa cubayda oo عشرة المبشرين كم يدور رجعها كم ده إن تسيدا وفكرته ما في لي نبول عمر قتل مامية إذا أنا ضيع هنا ما يتنا هذا يا رجاس بيولي عمر بركة وحولي وحان وحين دليسن إسلام كهرتي بختي قاعد كان صبي يعني دليسن وان قيمة لهين أيان وحين فعزنا الله بالإسلام ويلي إلهي وحن مقعيا ماموس يشرفنا ويا ليدين تتن حبا ما أننا هين بولا يدانو عربا هين لكن وحانو ماموس يا مقام بكويا لني مركانو الدين تتنقاضني سيدا وقد بعمر وحلي فمهما طلبنا أما فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله إمام الحاكم بكو سارورين يساعيسي هدانو كرر دي النبو لي عزada iyo sharafta waxaan diinkan ahayn haddaanu ka raadino ilaahay waana duleynaya cumar wuxuu leeyahay cagahaygan dhoobadooda ha eegina waxaan aaminsanahan qofku ahay islaamnimadan baa wax iga dhigtay buu leeyahay marka wuxuu ku faanayaa inuu qof muslima yahay marka waxaan leenahay islaamkeena inaynu xijisano oo qura maaha inaynu ku faano muctazun bihi noqono dad isaga ku faanaya التمسك بالدين والفخر بانتسابه inaynu diintan xejisano oo inaynu iyada muslim nahayna muslimnimadu ay faan qootay ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlay wuxuu leeyahay alayhi salaatu wassalaam fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tusalun ilaahay wuxuu nabi ku leeyahay fastamsik billadhi uhiya ilayk qabso oo xejiso waxa lagu soo waxyooday baa ilaahay leeyahay إنك على صراط مستقيم وايو جتو صنبض هاي سبا إلهي لي وضا صحت كنت أنت هاي وحي حكي سبا إلهي كنت المامي تتنا إلهي وحلي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ورانك هاي وحي هاي الدين تاسي لذكر لك شرف إيا شاك بويديني أدقى إيا ضدك عقبا وسوف تسالون وانا اللي ويدين دون أبا إلهي لي عزدا اللي سيي شرفت أو حكاية شيء إذن هدينو ربنا إنه هلكن سي جوجنو كو إنه دينتنا حجسنا أسبابتي كان سنة إنه حجسنا إنه الله نمادنا أو يوه الرئيس إنه برانو أو قرانو إنه ضدك ويادنو إنه إلهي كحرانو وبستكالسكي وحي نجهر إيمانا ينا إنه أصبرنو ربنا كالما يسانو أنت كذب إنه كفانو ضد عزيزين كوا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا با إله إليه ورعدي شرف دونيسا حق اللهم بالغ راديا با إله إليه الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلهي وحلي كوان قال هذا أولياء كدكت قرابة كدكت سود ويستي المؤمن كان الدركين إياه ما شرف بك الرادين أيام با إله إليه ور إله يكتس ما شرف الله رب إليه سبحانه وتعالى إذن حلين هذين ربنا هل كان نشوفونه وين دينتن أقانو لنا وين نحكي سنة وين نكفانا أنت أكذب حقوقك لا أدلى كمواطن ندود كان دقتها هي مركزات رادين كرتا وحنا ده راعينا إياه نولش هو تشالنج نولش جيب جدبوا عقبات لقى جوابيه أما وين عقبات هل كان كاغو هرمانية كجوابتها أما وين تسكن نقطة أياد واجه هذا محي عقبة دي حقاقة تالي لبدا مدنا يالي مايو وهذا مشو إلهي رير بنو إسرائيل كويو أماني مركو كور رمي وحولي
wajacalnaa minhum a'ima yahduuna biamrina waxaanu reer banu israa'iil ka yeelay qaar ka mid ah a'ima imaamiyo qaada leaders lagu daydo waa goorma lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun baa ilaha yidhi waa markay aayaadka iyagana rumeeyeen oo xejisteen ku sabreenna wixii dhib ka hortimay baa ilaahay leeyahy saasay liidarnimada ku heleen ama qiyaadada saasaa lagu siiyey baa ilaahay leeyahy innagana ilaahay muxuu ina yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu allaha lacalakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo sabra oo la sabir dhigta baa ilaahay leeyahy challengeska dad waa bini aadam waxaan kaa hor imanaya iyaba baa ilaahay leeyahy marka hadday iyagu tooda ku adkaysanayaan la sabir dhogaadna taada ku adkaysa baa ilaahay leeyahy oo waraabitu dhufayska ugu jira oo wattaquu allaha lacalakum tuflixuun ilaahayna ka cabsada waa guulaysan doontaan diinteena aan haysanno ku xejisanno oo ku faanno oo mashaakilka inaga hor yimaado ku sabirro macnaheedu maaha dad qallafsan aan ahaano dadka badh baa marka sidaa la yidhahdo waxay u fahmaan qof caniif oo violent oo wax kasta ka hor yimaada inuu yahay maya ilahi wuxuu leey yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira wamaa yadakaru ila ulul albaab alxikma walxanaka waxaa loo baahan yahay xikma iyo qaab dadka loona noolaan karo xadiidka aan eegna nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixayn ku yaalla caaisha waxay leedahay koox yuhuudaa nebiga u timi kuwii xumaa ka mid ah dabeetana waxay nebiga iyagoo habaarayo ku jeesjeesaya isla markaana iska dhigaya inaanay wax xun sheegayn bay u yimaadeen waxay ku yidhaahdeen assalaamu calaykum assalaamu baa laamka la tuuraya marka waxaad iska dhigaysaa qof wax salaamaya laakiin salaan maahee waxaad leedahay assalaamu bayd assalaamu calaykum waa ilaahay ha ku ilaaliyo allah ku xifdiyo nabadi korkaaga ahaate weeyaan assalaamu calaykumna waa geeriye korkaaga ahaato geeriye korkaaga ahaato marka intay nebiga u yimaadaan bay waxay idhahdaan assalaamu calaykum geeriye korkaaga ahaato caaisho nebiga la fadhida xanaaqday markaa waxay ku hadlayaan bay maqashay deetana way xanaaqday deetana waxay ku tidhi bal wacalaykum assaamu wallacna idinka korkiina nacdasha alle iyo geeriduba ha ahaata bay ku tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam caaishadii sidaa u qaylisay buu la hadlo wuxuu ku yidhi caaishaay ilaahay waa mid dabacsan oo dabaca jecel yuxibu arifqa fi lamri kullih caaisha malaa waxay istiri dee dabacani halkan malaa ma qabtee nebigu malaa wixii baanu maqlaynin waxay nimanku ku hadleen dabeetana waxay tihi awalam tasmac maa qaaluu ilaahay rasuulkiisi waxay ku hadleen miyaad maqlaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa maqlaya qad qultu wacalaykum isma dhibine wacalaykum un baan idhi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam riwaayadka xadiidkaasi waxay wada tilmaamayaan riwaayado badani uu nebigu ku leeyahy in allaha tacaala rafiiqun yuxibu arifq wayucطi cala arifqi ma laa yucطi cala alcunf wma laa yucطi cala ma siwaah calayki biالrifqi waإyaaka wاlcunfi wاlfuxsh ina arifqa laa yakunu fi shayin ila zaanah walaa yunzacu min shayin ila shaanah riwaayadka axaadiista markaynu isku ururino waxau nebigu tilmaamayaa rifqiga iyo dhimrinta iyo si qabow in wax loo qabtaa waa qurux badantay buu nebigu ku tilmaamaya cunfiga iyo shidada iyo qalqalafsanaans iyo violencekuna waxuma kordhiyaan buu nebigu leeyahy iyo afxumadu wax wanaagga lagama kaxeeya buu nebigu leeyahy ilaa wuu fool xumeeya yacni rifqigaa lagama kaxeeya ilaa waa fool xumaada rifqigu markaa waxba dadka ma yeelo idan waxay leenahay diinteenna inaan xejisanno ku sabirno challengeka aqbalno ka hortagno maca kulli dalikna dad dhaqan islaam uu ka muuqdiyo akhlaaqdii aan ahaano haddaan su-aasha si kale u dhigo waxa weeyaan waxaynu u baahanay inaynu kala garanno waa maxay farqiga u dhexeeya aldawabaan walindimaaj inaad milantid iyo inaad dhex geshid ama si kale haddaynu u nidhaahno maxaynu qaadanaynaa maxaynu se ka tegaynaa maxaynu faa'iidaynaa oo kaga dayanaynaa
maxaynan kaga dayanaynin waa inaynoo kala caddahay qadaaya diin wixii diinteenu sheegtay compromise waa inaynan ka gelin compromise ma gasho waa caqiidadaadii waa diintaadii qadaaya alcilmi watajaarib alinsaniya watijaara wakada wakada waxaasina waa ka qaadanayna idan wixii aynu haysanayn waa inaynu wax ku kororhsannaa ee waxaynu haysanay inaynu wax ku bedelana maaha waxaynu haysanay inaynu bixinno bedel qaadanno maaha si awgeed in badan waxaa maqli doontaan iyadoo la leeyahay bulshooyinku ha isdhex galaan ama integration baa loo baahanya ama qolada sociologyga waxay ka warramaan bulshooyinku markay isu yimaadaan dadka kala nooci 3 shay midun baa dhaca bay yidhaahdaan qofka strangerka ama daa'ifada qaliilka ah ee minority groupku inay giito sameeyaan meel galaan oo giitana in badan dunidan maanta maba jirtaba ilmahaaga qolka ku jira dunidoo dhan baa u furan giita ma jirto iyadu haddii waayadii hore meel gaara inta la dega la isxidhi jiray iminka netkan iyo midiyan iyo waxa kani sariirtaadu yaalla marka giitihii isagu ma jiro isma xidhi kartid maxaa yaalla marka waa laba mid assimilation inaad milantid oo maydhantid waa dee dadka ka mid noqotid inaad qalbiga ingiriis yar ka noqotid dushana ka madoobaatid waa bulshadaad ka mid tahay markaa iyo inaad waxaagana haysatid identitygaaga iyo waxaa tayna haysatid dadkana waxna ku kordhisid waxna ka kororhsatid siday u dhici kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay khatartaa dad ku dhici doonaa inay jiraan ilaahayna qur-aanka waa inoogu sheegay ilaahay qur-aanka waa ku sheego xataa qaar aqoon lahaa oo masaalixda adduunyo ka door biday oo lumay baa ilaahay sheegay oo qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ninuu ka warramayo oo leeyahy watluu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu walakinahu akhlada ila alard waatabaca hawaah famathaluhu kamathali اlkalb إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم إلهي وحو التلمامية dadka waxaad u sheegtaa baa ilaahay yidhi kii aanu aayaadka siinay mid aqoon-yahanaha aayaad baanu siinay baa ilaahay leeyahy ilaahay buu gartay xaqiiqaduu gartay diintuu fahmay aqoon buu diinta u yeeshay laakiin shaydaan iska raacay baa ilaahay leeyahy fansalakh waa ka siibtay diintiisii wax kaluu maslaxa u arka uu ka doorbiday diintii wuxuu ka dhaafsaday maxay masaalix dunawiyo kale uu arkooday ayuu uga tegey shaydaankaanu raacay baa ilaahay leeyahy ilaahay wuxuu leeyahy haddaanu doonno waanu kor yeeli lahayn laakiin isagaa dhulka isku nabay isagaa adduunka ka jeclaaday diinkiisa oo watabaca hawaah baa ilaahay yidhi waxay naftiisu doontuu raacay wuu diiday inuu xaqa raaco kaas tusaalihiisu wuxuu la mid yahay baa la yidhi eyga wadaadka kitaab xorka ahi eygu la mid yahay baa ilahay qur-aanku tilmaamaya eyga baa la yidhi haddii la eryana carabku laalaadiyaa haddii la iska daayana carabku laalaadiyaa xoolaha kale markay ama haraadaan ama kulayloodaan ama ayay haraariyada waxaan soomaalidu tidhahda ayay haraariyoodaan laakiin markay iska barwaaqaysan inay nimcaysan yihiin ma soo saaraan carabka eygu labada jeerba ma kala garanaysid maxaa la tilmaamayaa kan de haddii wax loo sheegayo diintii hadduu helay iyo haddaanu helin waa isku mid aayaadku waxba uma kordhin aayaadkan uu hayey watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina baa ilahay yidhi aayaadkii la siiyey iyo kuwo kale haddii lagu akriyo midna waxuma kordhinayso maslaxa kalu ka doorta idan wadaad kitaab xoora iyo waayeel kitaab xooraba waa la helaya iyo wiil yaroo kitaab xooraba dad diintooda ay la fududaato ama qiimaheedu ka doorbida qiimaha dunawiga ah sawgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay iman doonaan saxaabada isagoo la hadlaya buu wuxuu yihi waxaad raaci doontaan wadooyinkii kuwii idinka horreeyey ayaa taaka taaka iyo dhudhun u raaci doonaan xataa hadday god masalugalay galaan waa ka dabagelaysaan buu nabigu ku yidhi xadiiska riwaayaadka qaarkood waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allahi alyahuuda waannasaara qaala faman riwaayaad kalena waxay ku yidhaahdeen الروم والفرس قال فمن wuxuu nabigu ku yidhi ma yahuud waxay dhahdeen ma waxaanu sidaa u raacayna waxay ka yaabaynayin iyagoo diintii iyo xaqii haysta
inay ka lumi doonaan waa wax gariib ah qof xaqii arkaya inuu dhinac maro marka saxaabadu waxay qaadan waayeen ma diintaanu u dhimanay ee naf iyo maalba siisanay ee saatan ayaanu iskaga dhaqaaqi doonaa anagoo arkayna oo ma yahuud iyo nasaaraan raacayna markaasuu nabigu ku yidhi faman yaa kale mar kalena waxay idhahdeen ma ruum iyo furs baanu raaci doonaa faman buu ku yidhi yaa kale imaam ibn alxajar fii fatxi ilbaari marka uu tilmaamaya axaadiistan wuxuu leeyahay qadaayaadka ku saabsan tadayunkana cilalu tadayunkii ku dhacay yahuud iyo nasaara idinku dhacayo waddadaasa maraysaan bidacoodii iyo khuraafaad waxoodii wixii ku saabsan qadaaya dunawiya iyo maamul iyo dowladnimo iyo kuwana ruum iyo furus baa raacaysaan marka waxaa la tilmaamayaa muslimiin iman doonto oo diintooda ka fidnoobi doona qaarna xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dee se caalamulislaamigu ku sugan yihi so kitaabka lama xoorinoo baab kale kii westernkumaa la qaatay dee ruumku waayo waa kuwan une ruum iyo bersia raacaysaan baa la yidhi markay baababkaa joogto markay baababkan kale joogtana alyahuuda wanasaara baa raacaysaan nabigu calayh salaatu wasalaam uu sii sheegay maxaa loo sii sheegay in laynooga digo في سورة مريم إلهي أنبياء بدأ مكاك ورميا يا صالحين مريم إيو أيها إلهي كورميا مركي كوا لغا صور رمي أيها إلهي اسكو جمعي وحولي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا جروب كاين تلا تلمامي أنبياء يا صالحين تيا وحصر دن له وحلا يدوا كوا إلى آيات كيستادي لقوا أخرية سجود إلهي رميو يجو أويه لكن كوح كلا تلمامي كوح كلا الدين تأكتو دكو خفيفتي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا كوا وحق قدال مريبا إلى هيري كوح كالي كوح دان كالي محاو علامة صلاة لضيعوه إيا نفت وحيدون سول اسكراعه كوح دا الدين تكلم طي وحاو علامة ضيع صلاة أما waqtigeedii la tukanaynin ama iyadoo dhan oo la iskaga tagay ama weysadeedii oo la xumeeyay ama meesha dayac salaadeed iyo waxa kale oo calaamad u ah baa la yidhi naftu waxay doonayso la iska raaco suuqa iska gal iska zinayso khamr iska cab ribada qaado xoolaha boob beenta sheeg waxa doontaba walaaq waxa saw calaamada ilaahay leeyahay kuwaasi baa ilaahay yidhi naar bay geli doonaan عدي توبت كنت إيمان لقاها لا عمل صوبا لقاها له كوا إلهي وقدم دافع أبو ليه جنة قليا أيها الأحبة وحين لاني مرك بلشد ويلومي كرتا قفكو رو لومي كرا إساقو حتى الدين قرن يلومي كرا لكن سئل ليوحو باهي إنو دينتي سنة أقونو ياشو دينتي سنة دادك ويارو إساقو نطبقو أو كل نقمو إلهي حديد كي سنة إنو حوجيو وين دوغاتا challenges ka hor imanaya dad badan oo raba inay kulmiyaan inay jiraan maanta dunidana ay ku nooshiin ilhaadku waa diima kamida kursiga xiwaar walaadiyanka kursiga ku leeyihiin anbiyana way leeyihiin de ku mubashirin dadka ugu yeedhaya oo faafinaya iskuulla ku faafi halka ku faafi jaraa'id ku faafi ila hatta baskiinan casba dhinac laga qori jiray ilaahay ma jiray iska tumo إعلان قول العقد بحنيسا وحاصرا إلهي وحولي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إن بدنوا أهل الكتاب كم دبا إلهي وحي الربان إن قال لما يدين عليان إيمان كين الدبدي ولبا يقو قرنا يين حق سوغانتهين حسدا من عند أنفسهم إذن كواسنا واجران جروب بني آدم والشياطين والربائن الظلمطانة واجران با إله إليه سبحانه وتعالى عن كسو كوبية إلهي القرآن كمركو كور رمي وكت المامي وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا عليك إلهي مركو في سورة آل عمران المامي القرآن لسودة شيء آيات محكمات يكون متشابه له كوى في قلوبهم زيغ
waxay raacayaan baa la yidhi wixii tashaabuhay wuxuun baana kuwa cilmigaa leh ilaahay subxaana wa tacaala والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد كوا علم بيدغاي iyo waxa oran wixii xagga alle ka yimid oo dhan rumayna waxaanay ku ducaysanayaan oo leeyin rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ilaahay intaadna hanuunisay kadib qalbiga yaga ha weecinin ilaahay intaadna hanuunisay kadib idan ilaahayna tala saaro baryadiisana badi challenge kaana ka hortag haddaad aragtay inaanay kuu suurtagal ahayna challenge kale aad samayn karaysaa ee dhulkaaga iyo waddankaagii qabo sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin